kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group oo aad alaaba ka daawataan warbixinada xasaasiga ah ee markaasi loogu hadalhaynta badan yahay arrimaha fanka ku saabsan iyo warbixinada caalamiga ah iyo dhacdooyinka cajiibka ah haddaba daawade ka mid noqo daawadayaasha la xogteeni ugu dambeysay ee aan halkan soo galino kuna soo biir boggeena YouTube oo subscribe saaro gambalelkana furo ku mahadsanid warbixinteena maanta waxaynu ku qaadaa dhigaynaa alfanaan idlayare ayaa isagoo ka hadlaya ninka khaniiska ah ee ninka cadaanka qaba muuqaal uu soo duubay wuxuu carabka ku dhuftay inay jiraan fanaaniin Soomaaliyeed oo dabada laga babiyo walow uusan magacaabin fanaankan ayaa waxa ka muuqday muuqaalkiisa cara uu markaasi ku caareysan yahay fanaaniin ay sahyaan haddana wuxuu sheegay oo uu tilmaamay in fanaaniin badan oo dadka Soomaaliyeed ku raaxaystaan heesahooda gadaal laga dubeeyo الفنان إدlayare wuxuu kliibkiisa uu soo duubay ku sheegay inuu magacaabi karo balse uusan afkiisa ku wasakhayneen fanaaniintaasi haddaba su'aasha ay isweydiinayaan durbadiiba shacabka Soomaaliyeed ayaa noqotay in Idlayare maadaama uu sheegay inay jiraan fanaaniin qowmuluud ah una yaqaan inuu isagu yahay qowmuluud oo dabada laga babiyo ama isagu wax ka babiyo haddaba yaana ka hor dhicin muuqaalkiisa ila soo daawada sheegay ayaamahan baraha bulshada waxa qabsaday qof la leeyahay baashirin la leeyahay waa la qabaa waa la furay ma arka fiidiyoosh waa daawaday laakiin waxaan ogahay ninkaas yaad ugu mashquulinay fanaaniin badan oo taqaano Soomaaliyeed oo idin heeso aan la babiyaa kan waa bas oo is sheegay banaanka u iskeenay la kuwa idin heeso qaarkood waa heesiis oo soo saadaan aan la babiyaa ma gartay qaarkood hana moogma la ay ku maqin marka waxa idin leeyahay insha Allah aniga ma aqsanayo koow laba saddex hebel waa dhigraa bas ma dhahayo ilaahay ceebtooda astur laakiinse babis magaalada kaasina wuxuu ahaa alfanaan Idlayare oo fadeexadii ugu adkayd baryahan cagaha la galay maadaama uu bad faraha la galay intaan warbixintan mid ka ciise badan ku kulmi doona waxaan idinkaga tagaynaa sidaas nabad geliyo